بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan maanta halka ku duubaynaa goosgoos suugaaneed goosgooskaasoo hoga tusaaleynaya socodka nolosha taariikh aan saa u fogeyn waddankeena iyo dhacdooyin dhacay. waxaa inooga qisoonaya allah u naxariistay abwaankii weynaa xirsi magan godku maanta ka hooseeya. waxaana ilaaha cirarkii dhulalka abuuray uga baryaynaa in jannatul firdaws alaclaa uu ka waraabiyo. ummadda soomaaliyeed aqoon badan uma aanay lahayn xirsi magan, iguna suurageli mayso inaan maanta xirsi halka taariikhdiisa aan uga hadlo, laakiin taariikhdiisa waxaa laga dheehan karayaa aragtida uu nolosha ka qabay, waana ta aan maanta saarannahay oo aanu wax yar ka ifin doonno haddii allaha awoodda sare uu noo oggolaado. xirsi ummadda waa ka horreeyey, sida uu wax u arkayeyna waxay ahayd sida dhabta ah oo allihii cirarka iyo dhulalka abuuray uu u rabay addoommadiisu inay u arkaan. macnaheedu waxa ay tahay noloshan aanu ku nool lahay aadane markii la amaamuday iyo maantoo aanu annagu joogno, mar walba waxaa la soo raacin jiray aragti hagta qofka bini aadamka ah, aragtidaasoo ilays u noqota noloshiisa qofeed, ta qoyseed, tan qabiil, tan qaran iyo ta quruumaha. aragtidaasu waxay reebi jirtay ama raad ku reebi jirtay noolaha nool qaab socodka noloshiisa, taasoo laga dhexli jiray aragtidaasi sharaf, qiimi iyo kalgacaltooyo ummadda dhexdeeda ah. kala duwanaanta ummadda xagga xoogga, xoolaha iyo aqoonta waxay ahaan jirtay marka aragtidaasi ay mudanto mid loo irkado oo lagu bari gantaalo qofka aan markaa taagtiisu daran tahay ama awooddiisu liidato. sidaasay wixii u noqon jireen wax seergal ah oo ummadda dhexdeeda ku meeraysta. waxay dadku ahaayeen dad shidan oo u shidan samaha iyo khayrka, awoodna u leh celinta iyo reebista xumaha iyo liidnimada. aabiyoodka iyo gardarrada qofna ma qaadan jirin, xataa kuwii markii hore intaanu aragtida tan aanay mudan, kuwii addoonsiga qaayibay waxay heleen karti ay ku diidaan oo ay yidhaahdaan maya, aniga maahay ninka aad waxaa ku samaynayso. hadduu ka kale damco inuu ku khasbo in waxa uu sameeyana waxaa iman jirtay in la aadi jiray sadanada markaa ugu weyn. taa aan ka hadlaya waa tii nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam raadkii uu nooga tegay. raadkii weli waa taagan yahay, aahaartiisana way joogtaa, kutubkii iyo sunnadii nebigana waa ay taallaa. waxaase laisweydiinayaa dadkii fulin lahaa oo qaadan lahaa oo isku dhaqi lahaa. waxaan rabaa inaan guda galo xigmaddii xirsi ka tegay allaha u naxariistay. waxaana ku furfuranayaa qiso yaa badan oo uu sameeyey 91 allaha u naxariistee markii maxamed siyaad barre uu dabeeshaday kuna dumay carshigii uu markaa rubuuc qarni salka uu ku hayay. dumista carshigiisuna may ahayn wax la biciidsanayo, waxay ahayd aragtidii dhabta ahayd ee la rabay inuu ku nagaado
ama uu ku raago har weynna u noqota noolaha uu markaa hoggaanka u hayay ayuu ka wacday aragti dumis oo liidata oo burbur salka ku haysa ayuu door biday waxaanay kaliftay in uu isagoo cagacad oo aan qiimo iyo sharaf badan lahayn inuu dabeeshado buur dhuubana salka dhigo aragtidu waxay ku bilaabanaysay oo uu xirsi ku furfuray bismillaahi araxmaani araxiim ilaa yeershaa waa ba'she yeershaa macnaheedu waa dictator ilaa yeershaa waa ba'she la tashadaana waa bambaanshe war bal horta maxaa Stalin xabaashi looga soo qufay maxaa taalooyinkii sharafta oo Lenin loo burburiyaa maxay marantidii Mowt-Sinton maxkamadda horteeda isugu qaawisay muxuu Fidel Castro leeyahay sidii ay dibadeedkii horta weligiin iyo waaqin ma maqasheen buurdhoobo jeeri yeershaagii Maxamed Siyaad Barre uu ku go'doomay ilaa waabaayadii yeerisnimada lahankeeda iyo doogteeda lagama buskoodo Muqdisho iyo Moscow yeershaa baashay Muqdisho si burburka u sii dheer tan ka kaalaya teeda kale waa dhab maxaa dhaba shan baa dhaba in alla nool yahay isahayana yahay Allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum inaan lula iyo hurdo toonay qaban la ta'khuduhu sinatun walaa nawm inuu wax walba uuntay danqumiyoodana yahay waa wakiile inaanay danqumiyo kulusan u ogoleen alla tattakhiduu min duuni wakiilan Allahu khaaliqu kulli shay wa ala kulli shay wakiil sidii ahaan bajeer loo geeyo inaanay xaajana go'i karin wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu jeer diiwaankiisa la gasho xafiiskiisuna soo saxiixo inaan dalka iyo dadka toona waxba ku dhici karin ma asaaba min musiibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitaab min qabl an nabraha hadaba haday shantaasu dhab tahay inta lada alla loo gacan dhaafaa su'aabi iyo fadul maaha halka waxa laga dheehanayaa in alle inta doonto wad jiri kartaa hadii lagu qadaro marka aad weyga khaldan aad qaadato laakiin aakhirka waxaad ku biyo-shubanaysaa burbur cidda aad markaa hoggaanka u qabatayna raad murugo iyo walwal iyo masiibaad kaga tegaysaa waxaan ku soo lingaxayaa 76 dowladdii Maxamed Siyaad Barre oo cudud weyn oo ninkan markaa oo doras kale si wax kale aan wax u dorasi karin u arkay inuu quwad leeyahay iyo xirsi meeshuu ka taagnaa xirsi waxa u muuqatay aragti liidata ninka qaataa in uu liid ku idlaanayo burburna uu ku dhammaanayo isagoo sidaa uu arkay 76 ayuu laba mathal sameeyay mathalna waxay ahayd in Siyaad Barre oo markaa ugu sareeyay dawladda iyo saraakiishii la qabatay wadanka oo kooxa oo dhinaca iyo Dr. Yusuf Allah u naxariistay waad wada garanaysaan waa doctorkii qiimaha iyo qaayaha lahaa ee tuberculosis-ka madaxda u ahaa qaybta qaaxada aqoon fiicanna lahaa ilaahay ha u naxariistay isaguna waa godku ka hooseeya maanta jannatul firdaws la'alaana ilaahay ka waraabiyo ayuu xirsi maakub u soo qaadanayaa iyo ragu Yusuf hogaaminayo oo dad sano wanaagsan labaduba marka cabir wuxuu ka bixinayaa in Siyaad Barre iyo ragiisa rag qurux badan oo dhalaal weyn oo dhabana cascas weey ku dangiiga daabado qurux badan aqal qurux badan gala cuno maartay marka ku nool aduu nolol qiimo loo rafaahiye leh laakiin dhumucda ay dhararka iyo waxa dhalaalka ka muuqday macna may sameeyeen maxaa yeelay guntii gudaha ka dilaayeen waxay ahaayeen dad aan ka tarjumeen wixii qiimaha lahaa oo ahayd kalgacaltooyay in dadka sama lagu maamulo raga kale oo Yusuf hogaaminay bogay beerka isku dhagsanaa agabkooda iyo hugoodaba waxay ahaayeen waxaan macnaha aan ka muuqan nolol ka muuqan laakiin waxay ahaayeen dad garashada ka qoyan oo qiimo weyn leh oo macnaha fikrad sare oo nololeed haysta waxa uu marka ku cabiro wuxuu yiri
toddobadii qooqaagu saaka waxay ku waabariisteen qoomamo walwal quus iyo aayatiin abaar ah quruxda raaxada waxaa jamata hooga villa Soomaaliya iyo ciidamada loo tababaray inay cishaan midna lagu ladiwaa oo nolosha jaahilnimada sida ah toddobadii Dr. Yuusuf saaka waxay ku waabariisteen badbaado iyo diilo aayatiin laacahaya jacayl iyo isu qalbinimo dhexdooda ah daalka iyo diibta sadaadada iyo gogol iyo gasin la'aanta midna dareemi mahayaan oo nolosha jahadka sida ah taa waxaan ka dheehanaynaa oo noo muuqanaysa in qofka doonaya in uu sharaf iyo qiimo ku noolaado dunidatan habaadi goobo aragtidii u saamixi lahayd hab qurux badan oo nololeed uu ku noolaado aragtidaasu waxay duweynaysaa in uu badbaadadana ay ka timaado aragtidaa waxay aragtidaasu badbaadinaysaa oo saameyn ay ku yeelanaysaa habka qofka bini'aadamka noloshiisa ah ayay ku yeelanaysaa taasina waxay markaa keenaysaa in qofkaasu raagsiimo uu helo inuu qofkaasu noloshiisu ay noqoto nolol geed har weyn oo la harsado cidda ka agdhowna wanaag iyo sharaf iyo qiimay ka qaadayaan laakiin marka aragtidu liid noqoto oo aanay salka ku hayn abuuray noloshatan aragtidii uu ugu talagalay oo qiimaha weyn lahayd aragti aan ahayn qofka markuu u weecdo oo mid dhuleed oo aadane aragtidiisa ah ninkaasu gocon buu noqdaa bahal buu noqdaa dilaa buu noqdaa dadqal buu noqdaa isagaana aakhirka iscuno oo isbaaba'asha cidda oo ku agnool yahay ama la noolina waxay dhaxashaa halig iyo burbur waxaana daliil weyn u ah aadanaha maanta aan la nool lahay xuruubaha la galay oo dhan halliga dhacay oo dhan burburka dhacay oo dhan dhaqaalaha lumay oo dhan waxaa salka ay ku wada hayaan aragti liid aragti dhuleed aragti aan ka tarjumayn qiimiga qofka bini'aadamka aadane samaduu qiimo ka wataa oo rabbaa yidhi walaqad karramnaa bani aadam aadane waa noolaha keliya oo uunka kan ku nool ah ka ugu sharafta badan ugu qiimaha badan maxaa yeelay rabbi isagoo cabiraya ayuu yidhi wasakhara lakum maa fi الsamaawaati wamaa fi اlard dhulkaa cirkaa laalan iyo ubuucdiisa waxaa ku guda jira dhulka kan iyo waxa dhex ceegaaga aadanow adaa iska leh aadanihiisaa ahaa ee darajadaa sitay baa aragti liid inta uu ableeyo kala shaandheeyo magacyo kala duwan u kala baxsho sawirro u kala sameeyo ayuu magacyadaa uu sameeyey midna ku liidaa midna ku saramariyaa oo ah waxaan raad ku lahayn diinta ilaahay iyo dadnimada qofka وبالله توفيق وعلى ما نقول وكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته